banaanbax ballaaran oo ka dhacay maanta gudaha magaalada Boorama ayaa waxa isaga hor yimiday qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama iyo ciidamada biliiska isku horimaadkani ayaa waxa uu sababay dhaawac dadweynahani gadoodsan ayaa waxa ay diidanayeen xariga loo geysanayay fanaanka caanka ee Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa gudaha magaalada Boorama walow aan la garanayn sababta loo xidhayo fanaanka isla markaana ciidamada biliiska ay ugu taxaabayaan xabsiga waxa ka warbixisay xilliga la soo weeraray isla markaana ay ciidamada biliisku soo daateen xaafada waxana warbaahinta la hadashay isla markaana ka warbixisay saacada ay ciidamadu soo dooneen fanaanka waalidka dhalay Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac waxayna tilmaamtay xilliga la nagu bilaabay daakirkii baa hay ilaa xilligana wala nahaystaa ciidan bana soo weeraray labaxa jood been xalay kulku yimaadeen sax imikana ciid ayna ka badan bay hay agee faamigiisu baa joognay cid kale ma joog sax xabadii la riday baa nagu soo yaacay soo gidaarkaas madaxa ku dhintay jiiday soo direys xidhan askariya sax jiidayeen inantii bay qaadeen oo gaariga ku riteen inankii kale qaadeen oo gaariga ku riteen adiga halkii ka riday la dhaceen bud hay qayladii mujaarkina ku soo yaacay jaarkina waa kan xabad mujaar la isku xaamiyay hay dadka ay daawanaya waxaan ka codsanayaa dalka waan u dhalanay halkaan joogno ku dhashay ya macay waxuma galabsanin ya daalana nabad galiyo alla kama baqayaan ay joog naftu ka baxaysa weeyaan ilaahay kama baqayaan joog naftu ka tagtaa ma sakaraadaan waa musuqa waa khaayanimada waa dhigacafka ay yihiin dadka wada haliilayaan geesta kale maray ku gala telefishinka caalamiga ee bulshada si uu wax uga weydiiyo maamulka gobolka kan degmada Boorama iyo taliyaha qaybta gobolka Awdal banaanbaxyadani sababay dhaawaca isla markaana ay isaga hor yimaadeen shacabka iyo ciidamada biliiska ee gobolka Awdal ayayna u suurtagelin waa Shucayb Maxamed kaan shacbiga TV-ga caalamiga ee bulsho magaalada